بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي الصوماليين وإذن سلامي ودبدي إجودها وكونوا وحدينكم السلام يا سلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحن كسي عم بقادنا كورسين انجليشكا هاي نوبو بحي لغة انجليشكا عاو 10 كانوا حكو سابسين هاي وعشر أموال ليسر أموال باسج آت وحسة بدن له upgrade your speaking capacity. upgrade kor u qaad your speaking hadalkaada capacity awoodda hadalkaada kor u qaad upgrade ka dhigo upgrade kor u qaad your speaking capacity awooddaada hadal kor u qaad capacity means awood waa an autobiography haddii lagu waxa lagu dhihi karaa define ama what is ama autobiography maxaa la yidhahdaa what is autobiography maxaa la yidhahdaa is a self-written shakhsi ahaan waa qof qora account faalo of a person's life shakhsi qof uu qoro waa noloshiisa qof uu qoro an autobiography maxaa la yidhahdaa is a self-written waa qoris nafsad ah account oo faalo ah oo la qoro of a person's life shakhsi noloshiisa markaas qofka uu leeyahay uu qoro weer halkaasoo the author qoraaga tilis uu sheego uu ku xuso the story sheekooyin of his own experiences oo khibradiisa uu leeyahay experiences khibradahaas uu leeyahay waa personal growth sidoo kale wuxuu leeyahay personal shakhsiyaal oo growth kubiciisa inta yar uu sameeyo kubiciisa usually sida badanna from waxay ka yimaadaan childhood caruurnimadiisa to the time xilliga of writing ee qoristaas markaas ah it may include waxaa laga yaabaa inay ka koobnaato details faahfaahno about ku saabsan family qoyska education waxbarashada ma ka maqnaa challenges caqabadaha soo gudboonaada and achievements iyo guulaha qofka uu gaaro and etc oo xilamid ah it may include waxaa laga yaabaa inay ka koobnaato details faahfaahno about ku saabsan family qoyska education hakad waa socda education waxbarashada challenges caqabadaha qofka markuu wax diyaarinayo ama wax uu qorayo report ah markuu qorayo misaal ahaan wax badan aqoon badan kor imaan karo challenges min caqabadaha and achievements guulaha qofka uu gaaro and etc iyo wax lamid ah tan labaad ee ben friendly maxaa la yiraahdaa ben friendly waa saaxiibka qalanka wadaagtaan is a person waa qof with whom kaasoo to correspondence aad isweydaarsataan a ben friendly saaxiibka qalinka is a person waa qof waa ruux with whom kaasoo to correspondence aad isweydaarsataan dalatas waraaqooyin without meeting kula la-aan waa ma kulmaystaan laakiin dibaddu jira warqadsaa wadaagaysaan bis walaal halkaasaan jooga abbayaan halkaasaan jooga gacalisa iga warahay aniga xaaladii ka warahay aan isla xiriirno saasaan kula xiriiraya marka ben friend waa tan saddexaad it is clear that way iska caddahay taasi I am waxaan ahay wir ardaygan the most popular kan uu caansan and strenuous oo haddana xoog leh dadaal badan leh in the environment deegaanku ku nool deegaanku leh oo aad iyo aad ugu xoog badan oo caan ah soo ahaatee keep clear of my case niyo badeeda ka leexo aniga badeeda ma ku gali kartee yaa badeeda ka leexo soo ahaatee keep clear of my case badeeda ka leexo badeeda ka bax so keep clear of my case badeeda ka bax honestly speaking si daacad markaan u hadlo if all haddii dhammaan the students ardayda dhan make ay sameeyaan more struggle halgan badan unreadable ay dib u labalaabaan their efforts dadaalkooda they will never marnaba be failure ma ahayaan kuwa
ku dhaca imtixaanaadka ama noqonayaan kuwa guuldaraysta. Honestly speaking, sidaacadla markaan u waramo, if haddii all dhammaan the students ardayda dhammaantooda make ay sameeyaan more struggle halgan aad u badan unreadable ay dib u laabaan their efforts dadaaladooda, they will never marnaba be ma noqonayaan failure mid guuldaraysta. And I hope waxaan rajeynayaa they will succeed inay guulaysan doonaan. And I hope waxaan rajeynayaa they will succeed inay guulaysan doonaan for all dhammaantooda. Way guulaysan doonaan dhammaantooda. A public servant, shaqaalaha dawliga, is a civil servant, waa mid shaqaale oo civil ah, who is appointed kaasoo loo magacaabay or elected ama loo doortay to be inuu noqdo a public office, xafiis dawlad inuu ka shaqeeyo mid noqda, inuu ka shaqeeyo public office, xafiis dawladeed, inuu ka shaqeeyo public office, xafiis dawladeed. A public servant, shaqaale oo dawladda, is a civil servant, waa shaqaale dawladeed, who is appointed kaasoo loo magacaabay or elected ama loo doortay to be inuu noqdo ama uu ahaado a public office, xafiis dawladeed. A bribe, laaluushka, waa maxay laaluush? A bribe, laaluushka, is a money, waa lacag, or present, waa hadiyad, given oo la siiyo to someone qof, so as to help is u caawiyo oo u kaalmeeyo you adig uu ku kaalmeeyo by doing asoo sameynaya kan something shay uu sameynaya dishonesty oo dacadaro ah oo laqdaba ah or ama illegal ama xaaraan ayuu sameynaya. A bribe, laaluushka, is a money, waa lacag, or present ama waa hadiyad, given la siiyo to someone qof, so as si uu to help u kaalmeeyo you adig uu ku kaalmeeyo by doing asoo sameynaya something shay dishonest oo laqdaba ah or ama illegal ama xaaraan ah ayuu sameynaya. Whatever happens, wax kastoo dhacaba, bribe taking, qaadashada laaluushka, whatever happens, wax kastoo dhacaba, bribe taking, qaadashada laaluushka, should be stopped, waa in loo joojiyaa quickly, si dhaqsa waa in loo joojiyaa, no good waa iyada. Whatever happens, wax kastoo dhacaba, bribe taking, qaadashada laaluushka, should be stopped, waa in la joojiyaa quickly, si dhaqsa ah. Number 8, I understand that, waan fahmaya taas, government, dawladda, officials, saraakiisha dawladda, must behave, waa inay u dhaqmaan in a proper manner, dabeecad wanaagsan inay ku dhaqmaan, dabeecad proper ah waa inay ku dhaqmaan. I understand that, taas waan fahmaya, government, dawladda, officials, saraakiisha dawladda u shaqeeya, must behave, waa inay u dhaqmaan in a proper manner, dabeecad oo wanaagsan, dabeecad habboon, dabeecad wanaagsan inuu ku dhaqmaan waa. Number 9, as the matter of fact, sida xaqiiqdu tahay, as the matter of fact, sida xaqiiqdu tahay, we must behave, waa inaan u dhaqan, we must prevent, waa inaan ka hortagnaa. As the matter of fact, sida xaqiiqdu tahay, we must prevent, waa inaan ka hortagnaa, all of us dhammaanteenaba, doing samaynta evil actions, falaka xunxun, especially khaasaan waa in laga hortagaa bribery act, falaka oo laaluushka, corruption, musuqmaasuqa, nepotism, bribe act, waa in laga hortagaa maxay? Bribery act, falaka oo in laga hortago. As the matter of fact, sida xaqiiqdu tahay, as the matter of fact, sida xaqiiqdu tahay, we must prevent, waa inaan ka hortagnaa, all of us dhammaanteenaba, doing samaynta evil actions, falaka xunxun, especially khaas ahaan bribery act, falaka laaluushka, corruption, musuqmaasuqa, nepotism ee xashada, raping, kufsiga, etc iyo wixii la mid aba. 10, the woman was raped, waa la kufsaday naagtii by a gun point, qori caadadiis ayaa lagu kufsaday. The woman, naagta, was raped, waa la kufsaday by a gun point, qori caadadiis ayaa lagu kufsaday. casharka halkaas nuu eg yahay, waxaad in leeyahay asxaabta nagu cusub,
oo dibadda gudaha joogaba subscribe kanoo saaraano gambalaalkana furtaano si markasta casadaan dhigayno waxyaalaha xiisaha badan aan soo dhigi doono insha Allah ya oo ku soo gaaro follow noo saara bogga aan ku leenahay Facebookga iyo bogga aan ku leenahay TikTokga Facebook noo saara follow tan kale share taana ilowna share waa dhiirgelinteena si meel dheer u gaaro intaasa idinku mahadcelinaya waa mahadsantiin sida wacan sida wanaagsan aad noo dhegeysataan intaasaan ugu baxay casharkeena wixii ni wadis ah wixii faala aanu haysaan commenti nagu soo qora insha Allah waa yeelina waxyaalo codsigan ah waa sameynayna insha Allah anaguna waa dadaalina casharun xiisaha soo socdaan insha Allah sheekuna ajaib aad la yaabi doontaan insha Allah hatta wadankeena Soomaaliya sheekeynayna insha Allah halkaasaan ugu baxay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.